السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا فيديو عصب maanta waxaynu ka hadli doonaa qumanka. maxaa sababa qumanka, sida u dhaca qumanka, iyo u fududahay inuu ku dhaco, complication nooca kaaga imaan kara iyo waliba saa iskaga prevent kara lahayd. haddaad jeceshahay inaad ka bogtid fadlan sii daawo videoga ilaa dhamaadka. haddii aad tahay qof cusub please subscribe kuwa bilaash kambalaalkana taa si aad u aragtid video cusub markaan soo dhigo. haddaad horey subscriber u ahaydna waa mahadsantahay soo laabashadaada. fadlan like saar videogan, commentina kasoo bixi sidaad u aragtid videogan. qanjirada loo yaqaano qumanka waxay ku yaalin carabka gadaashiisa labada dhinac ee afka. infection markuu ku dhaco waxaa loo yaqaanaa tonsillitis. tonsillitis-ka waxaa keena laba shay, midda koobaad oo ah viral infection iyo midda labaad oo ah streptococcus bacteria. shaqada qanjirkan uu qabto oo ah sababta ugu weyn ee u fududeysa inuu markasta infection ku dhaco waxay tahay waxa uu la dagaalamaa jeermiska ama bacteria ama wax allaaliya wixii wasakh ah oo kasoo galo dhanka afka. asaga ayaa ugu horeeyo oo la dagaalama, taasi waxayna u fududeysaa inuu infection ku dhaco. qumanka ay sababaan bacteriyada waxay ku badan tahay carruurta da'doodu ay u dhaxayso 5 ilaa 15 sano. qumanka ay sababaan viral infections-ka waxay ku badan tahay carruurta da'doodu ay ka weyn tahay 15 sano. carruurta ka yar 2 sano uma badna inay ku dhacaan qumanka. sida caadiga ah qunka waxaa lagu daaweeyaa antibiotics ama qalajiyayaal, balse waxaa jira cuntooyin dabiici ah oo haddii aad cuntid ka yareynaya soo laabashada qumanka. cuntooyinkaas waxaa ka mid ah toonta, basasha iyo cabitaanka limonka. waxay leeyihiin awood ay kula dagaalamaan bakteeriyada. haddii aan qumanka la iska daaweyn, infectionku wuxuu kusii faafi karaa middle ear-ka ama dhegta qaybteeda dhexe, waxa ayna sababaysaa dhegtu inay infection qaado. qumanka haddaan la iska daaweyn waxaa ku kor samaysmi kara tonsil stones oo ah waxyaalo cadcad oo korkiisa ku samaysma. tonsil stones-ka waxay ka samaysan yihiin maadooyin kala duwan oo ay ka mid tahay calcium oo isku aruursaday meesha infectionku uu ka dhacay. qumanku haddii ay soo laalaabtaan waxaa lagula taliyaa qofka inuu sameeyo tonsillectomy oo ah in liska bixiyo qanjirka ama liska gooyo. halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa videogeeni aan uga hadlaynay qumanka. haddaa ilaa halkan soo gaartay oo ku mahadsantahay daawashada. waxaan rajeynayaa hal mise laba inaad ka faa'iiday videogan. hadday sidaas tahay fadlan like saar, subscribe ii saar si aad uga faa'iidaysato waxyaalo badan oo caafimaadkaaga u wanaagsan. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullah.